cashirkan waxa uu ku saabsan yahay role of teacher doorka macalinka role waa door marka waa jumlado gaagaaban oo ay macallimiintu u adeegsadaan ardayda ay wax barayaan markii lagu guda jiro xiisada maalinlaha ah qaybta ugu horeysa waxay leedahay sida tan why are you late maxaad u soo daahday ama maxaad u soo dib dhacday arday soo daahay ayuu la hadlayaa macallinku markuu wuxuu leeyahay why are you late maxaad u soo daahday come in soogal come in waa qofku markuu fasalka banaanka ka joogo waxaa lagu dhahaa come in soogal gudaha ama soogal why are you late come in maxaad u soo daahday soogal and stand up macallinku markuu rabo inuu arday su'aal weydiiyo waxa uu leeyahay stand up stack sit down fadhiiso markii arday buuqa uu arkana waxa uu leeyahay be silent aamus oo noqo arday aamusan markii arday uu fasalka khaladka galana waxaa lagu yiraahdaa go out of the class ka aad banaanka fasalka go out aad banaanka of the class ee fasalka aad banaanka fasalka markii arday uu khalad galo ayaa lagu ciqaabaa mararka qaar come to the front of students arday meel fadhiyo ayuu macallinku wuxuu rabaa inuu su'aalo weydiiyo ama uu ardayda hortooda wax ka soo jeediyo markaa buu ku leeyahay come to the front of students imaaw ardayda hortooda front waa horta and read the lesson akhri cashirka waa arday ay sigoo amraya write the lesson qor cashirka listen to me arday aan macallinku la soconin markuu arko wuxuu ku dhahayaa listen to me idageyso aniga and repeat after me ku soo celi aniga iga dib macallinka ay arday wuxuu akhrinayaa cashir markuu cashirka dhameeyo ayuu ku leeyahay aniga markaa akhriyo kadib adina ku soo celi marka wuxuu leeyahay repeat after me ku soo celi aniga iga dib and are you ready xogaa error ka jira halkan aan karabay are you ready diyaar ma tahay asigoo arday la hadlaya are you ready diyaar ma tahay markale macallinku asagoo arday inuu amar rabo ayuu wuxuu leeyahay you have 5 minutes waxaad haysataa 5 daqiiqo to do this exercise si aad u samayso exercise-kan ama layligan exercise waa layli ama exercise waa iska dhahnaa badanaaba marka you have 5 minutes to do this exercise waxaad haysataa 5 daqiiqo si aad u samayso layligan are you finished the exercise ma dhamaysatay layligii ma dhamaystirtay asagoo ardaygii su'aal kala weydiinaya ayuu ku leeyahay macallinku waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa su'aalihii macallinku ama awaamirtii uu ardayda siinayay macallinku asagoo haddana ardaydiisa la hadlayo ama arday la hadlayo ayuu wuxuu ku leeyahay open your book fur buugaaga at page 21 page-ka 21aad fur buugaaga page-ka 21aad waa isagoo macallinku inuu cashir u akhriyo rabo ayuu arday ku dhahayaa fur buugaaga page-ka 21aad markuu page-kaas dhammeeyo haddana waxa uu ku leeyahay go to the next page 22 aad page-ka ku xigo next waa ku xigo page-ka 22aad ee ku xigo aad markuu inta yiraahdana macallinku haddana waxa uu ku leeyahay do you understand the lesson cashirka ma fahamtay ayuu ku leeyahay macallinku ardaygiisa markuu ardaygu u jawaabana wuxuu ku dhahayaa thank you waad mahadsan tahay we finished our lesson waxaan dhamaystirnay cashirkeennii now haddana we are going to the home waxaan aadaynaa guriga macnaha xiisadii ayaa dhamaatay يعني أرضي مركي عشر لو أخري وحوليها معلمكم أرضي عشر كما فهمتي وفهمي أيوة لها يا وحوليها وما سنتهي we finished our lesson وحنا ما سنة عشر كاني now we are going to the home حدنا وحن أذينا جرجيني مركا السؤال هذا دارمي معلمكم وحوليها هذا every student أرضي والبا must take this homework وأنا قعدتها هول جريت كان والله يلقى أرضي ذا الله قصصيو xiisada lagu siiyo si ay uga soo shaqeeyaan markay ay xaafada tagaan ayaa waxa la yiraahdaa homework every student must take arday walba waa inuu qaataa take waa qaadasho this homework-gan waa inuu qaataa and must do waa inuuna soo sameeyaa the homework hawl guriyeedka ama shaqo guriyeedka waa inuu soo sameeyaa
I will check waxaan hubin doonaa shaqo guriyeedkaas waxaan hubin doonaa tomorrow berito ayaan hubin doonaa goodbye all students maca salaamo dhammaan ardayda marka waxaan filayaa inaad fahamteen cashirka page-kan haddii aan hal mar ku soo celiyo open your book at page 21 fur buuggaaga page-ka 22aad go to the next page 22 add page-ka ku xigo ee 22aad do you understand the lesson cashirka ma fahamtay thank you waa mahadsantahay we finished our lesson waa dhamaystirnay cashirkeennii now we are going to the home haddana waxaan aadaynaa guriga every student arday walbana must take this homework waa inuu qaataa hawl guriyeedkan and must do waa inuuna sameeyaa the homework hawl guriyeedka I will check waxaan hubin doonaa tomorrow berito goodbye all students maca salaamo dhammaan ardayda and intaas ayuu ku dhamaaday cashirkeena waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee cashirka u daawateen waxaan inoo balanahay darsigan midkiisa xiga inta ka sokayso ha ka qosanin guusha